Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan xarbu ahalka ama dagaalka sokeeye ma bilaaban 91dii waxay bilaabatay dagaalkii Itoobiya marka laga soo noqday waxay ahayd jabhadihii kacay in siyaasad lagu xaliyo 88dii dagaalkii ka dhacay Hargeysa ma ahayn inuu dhaco siyaasad waa lagu xallin karay intuusan dhicin ka hor haddii ay dhacday bal ka warrama haddii xukunkii uu tanaasuli lahaa Soomaaliya ma gasheen xarbu ahal laakiin wax walba waa qadar Allah way wax walba qadar Allah 91dii markii xukunkii u dhacay oo lagu loolamay xukunkii ay ku loolameen Generaal Ciidid Allah u naxariistee iyo Cali Mahdi midkood hadduu tanaasuli lahaa ka warrama waxaa yimid Operation Restore Hope Maraykanku uu hogaaminayo oo ay la socdaan caalamu carab wadamo badan oo islaan ah waxaa la yidhi Soomaaliya in laga baxsho dagaalka sokeeye oo la dhiso dib loo dhiso labadii nin oo waalaha ahaa iskuma daysan ma tanaasulin nin walba xarigga waa jiiday waa tii dhibaatadii loogaay dhacday hadday tanaasuli lahaayeen dhibkii dhacay ma dhaceen Maraykankii iyo waateen naga soo tageen waataan dib isugu noqonnay annaga waxaan noqonnay wax qaha wax isdila wax badda cunto wax qaxooti halka ku yimaada oo carruurtooda xabsiyo galaan laakiin haddii tanaasul uu imaan lahaa maalintaas Soomaaliya wax badan baa ka badbaadi lahaa ma dhicin 14 sano ka bacdi waxaa waddanka soo galay Al-Qaacida iyo shabaab waxaase ka daba yimid oo ceersanaya AMISOM nalooguma imaan in la badbaadiyo waxaa loogu yimid inaysan qaacida iyo shabaab ku faafin dariska oo aysan dhibaato kale u geysan dariska iyo caalamkaba laakiin waxaan noqonnay isku dan annagoo doonayna waddanka in la istaajiyo oo fursaddii aan luminay 93dii aan ka faa'iidaysanno maanta waxaa nala jooga ciidamo Burundees iyo Ugandees oo u dhimanaya oo dhiigooda u huraya inay Soomaaliya dib u soo celiyaan maqlaysaan waxaa dhinta saraakiishooda waxaa dhinta ciidamadooda waxaa dhinta korneela dhinta iyagoo ujeedadoodu tahay inay ka xoreeyaan cadowgana haystaa shabaab iyo Al-Qaacida dalka ka xoreeyaan laakiin annagu inaan ka faa'iidaysanno weeye marka laga xoreeyo waa inaan taagannahay annaga wadaynu ku taagannahay maaha markii laga xoreeyo inaan israadsanayna maaha waa inaan diyaarsannahay labadii kun TNG markay timid madaxweynihii markaas la doortay iyo prime ministerkii khilaaf baa bilowday khilaaf hadduusan dhici lahayn TNG ma timaadeen xukunkan ma imaadeen khilaaf baa yimid waa lagu kala tegay shirweynaa loo qabta haddana shirweynihii wuxuu dhalay TFG-da TFG waxay bilaabeen khilaafkoodii meeshii bay ka wadeen laysma tanaasulin waxay soo gaartay ilaa Jabuuti lasoo tago
oo 275 xildhibaan lagu daro 275 kale oo laga dhigo 550 si loo helo xal waxaa lagu soo doortay Sheekh Shariif khilaafkii haddana waa bilowday waa jiitamay ilaa aan anigu imid waxaan ku soo jirnay 10 sano oo khilaaf ah dowladdii TNG-ga TFG-ga hadda marka fursadda aan haysanno adduunkii in wax nalala qataa la rabaa markii la yidhi inkastoo aan wax qabannay oo aan shaqeennay waxaa la yidhi si xal loo helo khilaafka taagan waa inuu ra-iisul wasaaruhu baxo waxaan odhan karay maya bixi maayo si dhibaatada u socoto waxaan idhi anugu meeshaan xukun uma imaanin haddii anigu aan brobleemka ahay waa ka bixi karaa dhibaata ma jirto qoladina dhexdhexaadinaysa waxay tidhi haddii khilaafka uu bato annagu ma shaqayn karno ciidankeennu kama shaqayn karo Soomaaliya waa inaan isaga baxno marka Mr. Maxamed adeeg ku jirtaa saad yeelayso haddii khilaafku socdo annagu ma joogi karno waxaan is idhi marka hadda 10kii 93 inaan wax ku baranno wey iyo intii khilaaf soo jiitamayay waxaan idhi marka hadday saas tahay shuruud baan idinku xirayaa marka shuruudda maxay tahay anigu dhib ma laha waa bixi karaaye xukunkayga inuu joogo weye dhib ma laha anigu xukun uma iman wixii aan qaban karna qabannay laakiin inay wixii socdaan yaa la doonayaa waa in kubadda cagta waa fiirstaan soo maha kabtanka haddii u dhaawacmo kabtan kalaa soo baxa soo maha duwaha duwu ka ciyaaraa noobaha noobu ka ciyaaraa soo maha aniga marka waa dhaawacmay kabtan kalaa yimid oo hawsha horu wadi kara ciyaartooydii tiimkii waa sidiisii waay maya kabtankii waa la ansixiyey horta ma insha allah waa u mahad celinaynaa xildhibaanada sharafta leh laakiin hawsha ma dhammaystirnaa waa tiimkii inuu soo noqdo waay tiimka markuu soo noqdo markaasaan waxaan leenahay hawshu waa soconaysaa halganku waa soconayaa taageeradana waa laba jibaarmaysaa soo maha ballanta laga qaada taasay ahayd